kusoo dhawaada barnaamijkan oo qaybka barnaamijyada taxane aanu ku eegayno magaalada Berbera iyo taariikhdii ay soo martay iyo waayaha maanta ka jira magaalada Berbera. barnaamijkan waxaanu si gaar ah ugu eegaynaa dekadda magaalada Berbera oo kaalin mugla ka qaadata oo adeegida bulshada reer Somaliland iyo guud ahaanba wadamada Geeska Afrika. dekadda magaalada Berberi waxa kale oo ay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn haddaanay ahaynba meesha ugu weyn ee dakhligu ka soo galo dawladda Somaliland. waxaanay u adeegtaa guud ahaanba bulshada reer Somaliland. haddaba waxaanu barnaamijkan ku eegaynaa marxaladii kala duwanaa ee dekadda lafteedu ay soo martay iyo taariikhda ay ku leedahay magaalada Berbera iyo guud ahaanba gobolkan. waxaana barnaamijkan ku bilaabayaa waraysi aan la yeeshay maareeyaha guud ee dekadda Berbera Axmed Yuusuf Dirir. waatahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay maareeyaha dekadda Berbera Axmed Yuusuf Dirir. su-aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeye waxaa imika dhammaaday uun xilligii xoolaha aadka u tirada badan ee carafadu ay ka bixi jireen dekadda. xoolo intee lag baa sanadkan 2011 dekadda Berbera ka baxay? bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waad mahadsantahay Cabdisalaan adiga tiimkaaga Universal kula socday booqashada noogu yimi. dekadda Berbera weyn ognahay oo waa dekadda xagga xoolo dhoofinta Geeskan Afrika ugu ballaaran. waxaad moodaa inay sanadba sanadka ka dambeeyaan xooluhu kor soconaya waqtigan xaadirka. sanadkan iminka carafadiisa aynu hadda ka soo baxnay waxa dhoofay xoolo ku dhow aan idhaahday 3 milyan oo neef oo ariya ayaa dhoofay sanadkan. waa tahay xoolaha kale sida geel oo kale iyo lo'da. geela iyo lodu horta lodu Sacuudiga inta badan ma tagto laakiin waxaanu geynaa Yaman iyo Cumaan. in geelana markii hore Sacuudi Arabia buu tagi jiray laakiin imka suuq cusub ayna ku soo biiray oo ah in Masar oo imka kaba badan xoolaha ay qaataan Sacuudigu. marka 100,000 iyo dheeraad geela ilaa 130,000 oo lo ah oo inaga dhoofeen sanadkan ayana. waa tahay xoolahaasi waa xoolo aad iyo aad u tiro badan. marka dekaddu marka dhinaca hawlaha la eego ma u maare helaysaa xoolahaas oo kale inay ka baxaan sanadkii? kolley waa aragnimo badan baynu leenahay sida xoolaha loo dhoofiyo iyo sida loogu maare helo in xoolo inta laga dhoofiyo wax dhibaato naga soo noqdayna ma jiraan. mar kastana ayagu baan xoolaha priority-ga siinaa oo waqtiga carafada culayska ugu badan xoolahaanu saarnaa oo xagga importka waanu yareynaa si xooluhu si dhammaystiran oo bilaa rabshada ay ugu dhaafaan. waana u maare helnay waana naga dhamaatay alxamdulillah. waa tahay sanadkan 2011 aynu ka hadlaynay markaad eegto xoolaha tirada leeg imisa marka baaqaaday? wallaahi horta laba shirkadood baa ugu waaweyn waxay noo yimaadaa oo maxjarka kule magaalada Indhadeero iyo maxjarka Jaabiri ama shirkad Imaaraati ay maamusho. maraakiibtu waxa la oran karaa waxay gaaraysaa ilaa 140 markab 160 markab way gaarayaan. waana maraakiib waaweyn oo qaarkood qaadayaan 100,000 oo neef iyo wax ka badan markiiba. marka laga tago xoolahan sanadkan baxay khaasatan xilliga carafada marka guud ahaan tilmaan naga sii dekaddu sidee bay ku shaqaysaa? dekaddu horta san ku sheegay dhinaca xoolaha waa dekadda ugu ballaaran. dhinaca exportka importkana waxay ku leedahay soo dejintana taariikh bay ku leedahay oo in badan bay wax ka soo degayeen oo ilaa taariikhda Turkiga wixii ka horeeyay ay taariikh ku leedahay. waana dekad xagga xiriirka ay la leedahay wadamadan aynu jaarka nahay taariikh dheer ka dhaxayso. taasuna marka dambaysa kor bay u socotaa. waxyaabaha mudan ee iminka sanadadii ugu dambeeyay ugu soo biirana waxaaba ka mid ah in noqoto dekedeenu dekad kontiinaradu ka soo degaan oo marka laga hadlayo wadankii Soomaaliya la isku oran jiray waa dekadda kaliya ee maanta ay kontiinar ka degaan oo kontiinarada ka soo dega halkanu badeecada ku jirta barkoodba transit noogu dhaafo Soomaaliya. marka waa dekad mustaqbal fiican oo kor socda leh. waliba aan rajaynayno haday san kontiinaradu u socdaan inay noqon doonto meel transshipment laga sameeyo mustaqbalka oo badeecadaha ka imanaya Yurub ee u socda bariga fog inay mar inuu noqoto lagu kala wareejiyo halkan oo halkan mustaqbalka u noqoto meesha transshipment habka
ama meel transshipmentka dib u dhoofintu ay ka hirgasho mustaqbalka dhow aan rajaynaa insha Allah iyadana. Axmed, guud ahaanba mandaqadan badaha ku yaala waxa dhawaanaha dhibaatooyin ku hayay burcadbadeeda marka maraakiibta yimaada ama u soo socda dekedda Berbera wax saameyn oo la taaban karo ma ku yeeshay Berbera? horta burcadbadeed markaynu nidhaahno Cabdisalaam ma aha wax dekedda Berbera unu gaara dekedaha geeska wax u gaarana maahay laakiin waa mushkilad caalami ah ka taagan oo adduunka oo dhan ka qaylinayo dekedda Berberana waxay ula siman tahay adduunku sidoo uga qaylinayo qayladaas un bay kala mid tahay laakiin wax iyada u gaara oo gaar u saameynaya kaga duwan tahay adduunka ma jirto waxa kale oo yana muhiim ah inaan yana ku sheego in Nordic Crisis Management shirkadda la yiraahdo ama organization-ka la yiraahdo badaha caalamiga security-gooda ka hadlaya dekedahaas inay fuliyeen nidaamkii security loo baahnaa markay dekedda Berbera ku sameeyeen assessment ama qiimeyn ay ku sameeyeen inay ku dareen dekedaha ku dhaqma sharciga caalamiga ah ee hay'adda badaha maxaa la yiraahdaa hay'adda badaha adduunka ay soo saartay 2001 oo ay ka mid tahay shahaadada halka dushayda Suudaan oo kale ay dekedda Berbera siiyeen oo yiraahdeen dekedaas waxay fulisay shuruucdii looga baahnaa security-ga dekedaha adduunka ay fuliyaan marka guud ahaan taabur cadbadeed ma aha wax anaga noo gaara laakiin mushkilad caalami ah waata haddii dib aynu yara noqono Axmed muddadii 13 ilaa 14 bilood ahayd ee xilkaada adigu haysay maxaa ugu weyn la taaban karaa aad soo kordhisay baad salaada wallahi waxaan isleenahay wax badan baa soo kordhiseen haddii ay tahay dhinaca infrastructure-ka iyo kaabayaasha dekedda haddii ay tahay dhinaca maamulka haddii ay tahay xagga ballaarinta dekedda haddii ay tahay service-ka loo qabanayo dadka ganacsatada xiriirka dekedda la leh wax badan baa soo kordhisay maanu isleenahay oo ay ka mid tahay in aanu ganacsatadii meelaha badan ku xafiisyada kala duwan soo mari jirtay ay maanta waqti u heleen inay meel kaliya service-ka u baahnaayeen ka heleen oo hal counter oo kaliya intaan u sameynay ay halkaa ka qaataan service wixii u baahnaayeen qofka ganacsadaha haddii aan isaga wax ka khaldanayn aanay muddo ku qaadanin xagga ganacsatada service-kan u qabanayay baanu ka sameynay dhinaca infrastructure-ka waxaanu sameynay dhinaca security-ga oo kale waad arkaysaa oo macni dekeddu sidii ahaan jirtay security-ga loo soo maro iyo nidaamka nabadgelyo lagu soo galaa sidoo ahaan jiray iyo maanta halkii taagan tahay farqiyada u dhaxaysa waxaanu sameynay muddada aanu joognay 13 bilood ahayd ama aan xilka hayay inaanu gaarsiino heer inaanu electronic ka dhigno geedadkeeda lagu soo galo oo qofkii aan kaarkaas sidan aanu awood u yeelan inuu soo galo qof kasta iyo albaabkana u dhaxeeya kaarkaas waxaanu dekedda iyadana ku sameynay ballaarin fara badan markan soo koobo oo ay ka mid tahay qayb aanu dibadda ka sameynay oo ugu talagalnay in containeradan maran ee dekedda buux dhaafiyay aanu dibadda ugu saarno si aanu chance ugu helno inta markabkaas maqan yahay ee markabka kale containerada buuxa dhigayo in aanu banaanka iska dhigno kuwa maran oo aanay dekeddu naga noqonin mid ciriiriya oo aanan chance u wayn xoolihii dhoofayay oo aanan chance u wayn badeecadii digaysay oo nu isku manage garayno inaanu is waafajino dekedda qiyaasteedu 650 mitir tahay inay haddana awood u wada yeelato inay qabato containerskii iyo xoolihii iyo cargo-ga la qabato waxaanu qabanay nidaamkii maamul ee yani dhaahdo xagga dejinta oo kale operationka oo kale waxaan kala saarnay doonyaha iyo maraakiibta marka hore meel baa lagu wada maamuli jiray laakiin si hawshu u fududaato lana helo cid gaar loogala xisaabtamo wax kasta maraakiibtana maamul gaar aan u sameynay oo qayb operationka ka mid ah doonyaha oo berigi hore cabasho badan ka taagnaan jirtayna maamul gaar oo lagala xisaabtamo muddada ku dejinayo ayaanu ayagana u sameynay waxaanu kordhinay saacadaha la shaqeeyo oo ka dhignay 18 saacadood halkay ka ahaan jirtay 14 saacadood 4 saacadood siyaada ayaanu ku darnay si aanu waqti ugu helno in badeecadu degdeg nooga tagaan oo anagana culaysku naga kala yaraado marka waxyaabo badan oo sidaas waan sameynay xarumo dabdamis baanu sameynay oo hadda dhamaystir ku dhow shaqaale baan u tababarnay u gaarka ahaa oo leenahay dabdamis dekedda iyo magaalada guud ahaan wax ka qaban kara taasoo rajaynayna inay noqoto waqtigan xaadirka ah xarunta dabdamiska ama dabka la dagaalantay Soomaaliland ugu ballaaran ilaa hadda heerka marayso waxay maraysaa inay noqoto Soomaaliland ugu ballaaran marka guud ahaan waxyaabo badan oo la taaban karo
ayaanu qabanay cabdisalaam waata axmed waynu ku noqon doonaa taariikhda dekadda magaalada berbera oo muddo aad iyo aad u dheer soo jirtay laakiin waxaad aad uga hadashay adeegyada soo kordhiseen waqtigan xaadirka dekaddu ay bixiso markaaynu eegno gobolkan dekadaha kale ku yaala haddii lagu yidhaha tilmaan ka bixi waxa ugu weynee dekadda berbera maanta ay kula tartan geli karto ama ay dheer tahay maxaad ku tilmaamaysaa horta wax iska cad oo annagoo qiraynaba maahay xitaa waxaa qira dadka aanu serviceka u samaynayno waxaa ka mid a timeka aanu dadka shaqada ugu qabanayno oo fudud oo tusaale ahaan qofku maalin buu badeecadiisa kula bixi karaa waxaa ka mid a rikoorka aanu gaadhsiino inta tan aanu maalintii dejinno tusaale ahaan 2,500 oo tan ama in ku dhow 3,000 oo tan hal markab deked gobolka ku taaloo gaadhsiisa badeecadda intaa leegina dejiso ma jirto macnaheedu waxaan odhan karnaa markay dadka maraakiibta wataa noo yimaadaan waxaan yidhahdaan waxaa gaadhsiiseen rikoodh aanaan weligood arag markay rikoodhadooda soo saaraan waxay ku wareegaan 900 iyo 1,700 inta u dhaxaysa laakiin annagu waxaanu gaadhsiinaa ilaa 3,000 wuxu dhigma taasoo ay sababayso muddada aanu ka shaqaynayno iyo shaqaalaha oo dad muddo badan ka soo shaqaynaya waxaan xirfad u leeyahay marka waxyaabaha ay kuwaas ka mid yihiin ayaan odhan karnaa waanu dheernahay dekadaha kale waa tahay taariikhda dekadda berbera markaynu dib ugu noqonno muddo intee leeg bay dekad ahaan u shaqaynaysay waqtigii ka horreeyay waqtigan casriga iyo waqtigan casriga iminka lagu jiro waqtigii ka horreeyay waqtigan casriga lagu jira waa markii ay ahayd magaalada dhinaceeda dekad alxadiid halkii la odhan jiray oo markii dambe loo soo raray iyo markii ka horreysay oo ahayd in gacmaha wax laga dejiyo buudad lagu soo jiido laakiin dekadan casriga maanta la isticmaalaya waxay bilaabantay 1968 markii ruushku sameeyay 300 mitir ugu horreeyay ilaa 68 ilaa 84 waxba laguma kordhin 84 kii dawladda Mareykanku ku kordhisay 350 mitir oo kale oo qaybta kala marka dekadan hadda taagan labadaas oo qaybsantaa 300 oo ruushka oo mitir iyo 350 mitir oo Mareykanku ku kordhiyay waata axmed marka badeecadaha ugu badan maadaama imika xilligii xajku uu dhammaaday xoolaha faraha badan le ay baxayeen badeecadaha ugu badan ee dekada ka soo dega imika maxay yihiin laba u qaybsan yihiin waa badeecadaha raashinka iyo badeecadaha la yiraahdo general cargo-ga ee alaabta kala ah badeecadaha general cargo-ga ahay inta badan waxay ku yimaadaan ama container ama doonyo ugu badan oo Dubai baa laga keenaa waxay ku yimaadaan doonyo ama waxay ku yimaadaan container adduunka oo dhan meel kasta waa laga keenaa badeecadina waa raashinka waxay u qaybsataa sonkorta iyo briiska daqiiqda iyo wuxuu dhigmo waxa isna barbar socda sibirka oo aad moodo inuu badeecadaha ugu badan ee soo kordhayay isagana barbar socdaan alaabtii kale building materialka ee looxii jiingadi waxaas barbar socdaan marka noocyadaas oo qaybsamaan badeecado inta badan meel heebay ka yimaadaan wallahi meel badan bay ka yimaadaan san ku sheegay imaaraadka ka yimaadaan waxyaabo general cargo-ga ahay sonkorta oo kale ilaa Brazil bay ka timaadaa sibirku wuxuu ka yimaadaa Pakistan Oman Iran uu ka yimaadaa marmarka qaarna Masar baa laga keenaa waxyaabo containerka ku yimaadaana ilaa China ilaa Europe meel kasta way ka yimaadaan ayaguna marka la eego mustaqbalka waxyaabaha aad jeclaan lahayd inaad soo kordhiso ama aad oran lahayd maanta way ka maqan yihiin dekada berbera ee ay hiigsanaysaan maxaa ka mid ah wallahi taa istiraatiijiyad weyn baan ka leenahay mustaqbalka dekadu inay yeelato halkan iminka dekada kaliya ka tahay inay yeelato dekad gaara oo containerada u gaara horta oo loo waxa loo yaqaan container terminal area loogu talagalay waanu haynaa oo 2,800 mitir ama 2 kilomitir 800 mitir oo qaybta dekada ka soo horjeeday la oran jiray Tamara waa qayb badda dhex gasha oo kulli arki doontaan oo isaga sii sameeysan sida dekada si dekadan ugu soo hadho waxyaabaha general cargo-ga iyo livestock oo containeradu gaar ka noqdaan iyo inaanu helno iyaduna qayb kale oo qaybtan hore kuugu sheegay oo iyaduna containerada transshipment lagu sameeyo ee aan wadankana gelaynin transit ahaan u dhaafin wadamada jaarkeena in iyadana qaybta la helo marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee dekadu ku dhameystirmaysaa waa in la helo container terminalka iyo transshipmentka
waxaysna noo barbar socdaa oo areadiisii hadda ay noo bannaan tahay aynu sharcigiisii wadnaa qaybta la yidhaha free zonka free zonkii ayaa isaguna mustaqbalkaan rajaynaynaa inuu dhaqaaqi doono oo wax badan ka tari doono in halka dadku iminka ka soo adeeganayaan ilaa Dubai iyo adduunka marayaan ganacsatada waaweyn halka joogta inta halkan badeecadooda dhigtaan wadamada geeska oo dhan isugu yimaadaan oo halkan kaga iibsadaan iyada oo maxaa la yiraahdaa free zonka dhexdiisa taala waxyaabahaasaan rajaynaa insha Allah waa tahay markaynu eegno kaalinta dekada berbera ay kaga jirto magaalada berbera deegaan ahaan iyo guud ahaanba Soomaaliland haddii aynu ku horeyno magaalada berbera imse qof baa tusaale ahaan u soo shaqo tagay dekada berbera dekada berbera marka la isku daro shaqaalaha sida dadban ugu soo shaqo tagay iyo kuwa shaqaalaha tooska ilaa 5,000 qof oo soo shaqo tagaan gartay Soomaaliland muhiimadda ay ugu fadhido maxaad ku tilmaamaysaa Soomaaliland muhiimad weyn bay ugu fadhidaa oo aan inna ka qarsoonayn waayo waa meesha 80% miisaaniyadeeda contribute garaysa ama laga soo saaro kol haday tahay meesha miisaaniyada 80% laga soo saaro muhiimadda ay leedahay intaas ku filan boo sawirkeeda ku siinaya maariyaha dekada berbera Axmed Yuusuf Dirir aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdisalam aad qaybaha kale ee ku saabsan sida ay u shaqeyso dekada magaalada berbera iyo waxqabadkeeda waxaan u daynayaa wariyaha kale ee Universal TV Axmed Xuseen Warsame aad u mahadsantahay Cabdisalaan Herere haddaba qaybtan kale ee barnaamijkeenan waxaynu ku eegi doonaa shaqooyin kale oo kala duwan oo ay dekadu u shaqeyso nidaamyada ka jira qaababka dadka loogu adeego iyo guud ahaanba waxyaabaha cusub ee ku soo kordhay dekada caalamiga ah ee magaalada berbera iminka waxaynu taaganahay wajahada hore ama kadinka laga galo dekada waxaa loo sameeyey qaab cusub oo hore aanay u lahaan jirin oo la sugayo amniga amaba security-ga taasi oo albaab electronic ku furmaya oo yahay qaab cusub oo laga hirgeliyay kaasi oo ku furmaya kaarka la'aantiina marnaba aanu furmaynin albaabkaasi bal aynu eegno haddaba isla markana aynu u korgalno qaabka oo u furmayo waxa weeye isaga ayaa baabuurka baashan waxa lagu eegaa waxyaabaha walxa qarxa ee xagga hoose waxyaabaha meelaha hoose ku dhijisan ayaa lagu hubiyaa marka shaqaalaha security-gu baabuurka inta ilaa ay saaraan baabuurku ma dhaafo imika ayaa waxaa lagu qabanayaa kaarkaas si uu furo baabuurkan oo baadhidiisa u dhammaatay halkan waa xafiiska marinka kadinka dekada ee laga galo dhammaan wuxuu kantaroolaa kaarka dadka galaya iyo dadka ka soo baxaya qaabka loo kantaroolaya waxa weeyaan kaba soo qaad ahaan markaan soo qaado manual ahaan iminka computerka ku jiraan daatada oo dhan oo kuwan dadkii si loo garto qofka wajigiisa kaarka inuu stiin kale marka computerkana ku jira waa ka tusaynaa dulada sidaas loogu shaqeynaya halkan waxaan ka aragnaa ama kala soconaa dhaqdhaqaaqa dadka soo gelaya baabuurka soo gelaya baabuurka baxaya taasoo dhaata ahaan waxaan yahay rikoorkii tusaale ahaan qofka albaabka yar ka soo galay magaciisa lambarkiisa saacaddu soo galay adeeg annagoo maalin ama 2 sho ama sanad ama bil kadib soo saari karna rikoorkiisa tusaale ahaan waxaa la yidhi oo kale gaari la garan waayo kale ayaa galay saacad ka hor dekada gaarigaas muxuu ku soo galay la isweydiinaya adeeg wixii ku soo galay sharcigu sitay kaarku ku galay halkan baan ka heleyna adeeg waxaan joognaa qayb ka mid ah meelaha hawluhu ay ka socdaan dekada magaalada berbera ee muhiimka bal haddana waynaad arkaysaan dekad cusub oo barbar ah tii hore ayaa laga sameeyaa waana qaybta loogu talagalay kontiinarada haddaba khayre oo ka mid ah mas'uuliyiinta hawlwadeennada dekada berbera ayaanu weydiinaynaa bal hawshani inta ay socotay iyo waxa ay soo kordhin doonto bismillahi raxmaani raxiim hawshan waxay socotay in muddo ah qiyaastii imika 2 bilood ayay ku dhowdahay inta ay socotay waxa weeyaan dekad loogu talagalay empty containerska iyo weliba in looga faa'iideysto wixii badeecada ee saayid ay ku soo kornay dekada taasoo mustaqbalka dhow
noqon doonta mid lagaga kaaftoomo ama meesha ka saarta haddii ay ciidhi jiray ama inaantay xoolaha dhoofkooda oo inaantay magaranaysa iyo marka alaabta loo aad isugu yara dhawaa markii hore waxa weeyaan horumar la taaban karo qiyaastii iminka waxa weeyaan 750 mitir oo isku wareega xagga badda laga soo buuxiyey waana la sii waday inta badda oo la dhammaystiraya gidaarkaas la isku xidhaya waa mid meesha ka saari karta baahi aad iyo aad loogu qabay in dekadda la ballaadhiyo waxaanay ka weyn tahay dekedeennii hore caadiga ahayd oo laba qaybood u qaybsami jirtay qayb ruushku dhisay iyo qayb maraykanku dhisay tan haddaba maanta yaa dhisay ruush baa dhisaya mise maraykan baa dhisaya mee dekedda berbera dhis dadku inta badan waxayna weydiiyaan yaa ka caawiya dekedan cusub ee 770 mitir iyo 50 mitir ah iyo investmentkeeda ka caawiya investmentkeedu meel kale kama imanin wixii ka soo baxayay dekeda oo loo ururiyo loo ilaaliyay ayuu baa lagu maalgelinayaa waxaana dhismeeda gacanta ku hayaan niman injineero oo dekeda ah maamulka dekeduna waxa uu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay sidii uu bulshada ugu sameyn lahaa deked ka ballaadhan dekedii hore sideen horeba u sheegnay dekeda berbera waa deked caalami ah isla markaasina adeegeeda sanadba sanadka ka dambeeya ay wax ku soo kordhayaan inkastoo weli waxyaabo fara badan oo dhimani ay jiraan haddii ballaarinta tahay haddii shaqada tahay iyo haddii ay tahayba isticmaalka dadkaba balse xilligan aynu odhan karno waxay taagan tahay marxaladdii ugu wanaagsaneed tan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey qaybtii aad arkayseen hore ee ballaarinta dekeddu waxay ahayd qaybta loogu talagalay konteenarada sidaynu horeba u sheegnay taasi oo caawinaysa sidii dekadu ay u ballaaran lahayd isla markaasina adeegeedu uu kala fududaan lahaa ee uu kala yaraan lahaa waxaa halkan ila jooga mid ka mid ah howladeennada wada qaybtaasi cusub ee dekada lagu kordhinayo Cismaan Cabdilaahi waa injineerka dhisaya ee imika ku howlan hawshaasi ballaarinta dekada Cismaan waxaad nooga warantaa bal marka hore fikirkan xalgee ayaa uu ka yimi in la ballaariyo maxay tahay baahida keentay baahida keentay waxa weeyaan dekadoo alaabta ku soo baahatay containerska iyo wixii culayska ahaa iyo wixii la mida ayaa ka sababtay in la sameeyo meel loo qaado alaabta moving lagu sameeyo markay dekada ay cidhiidhi ka dhigaan kabacdi waxay soom ballaaran oo mitirkeedu iyo ballaarkeedu uu tegayo 600 iyo something mitir waa la kabisay ciid baa la dhigay carrakaa waa la dhigay waa la samaynayaa deerkii baa lagu xidhay laydhkii baa lagu xidhay waa la dhigi karaa hadda iminka wax lahaa wixii loo baahdo culays kastay leeyihiin waa la dhigi karaa way iminka waxaynu arkaynaa in carrakaawdii ciidii la dhigay marka ma qaab sawiraysan ama laamiyo sidii macna dekedeedu rasmi ah loo sameeynaya mise qaab in ku meel gaar ahaan oo kale oo la isku sameeyo abtunaw ku meel gaar ahaan baa loo isticmaalayaa sibirkana waa la dhigi karaa qaab dekedeed waana la dheerayn karaa weelku xitaa uu ku xidhan karaa aakhirka sida deked camal iyadoo xafaaradu qotay maxay soo kordhinaysaa markaa ayad sidaa waxay soo kordhinaysaa berbera oo yeelatay laba dekedood oo ganafka isku haya badeecadaha la dhigay lagu ragaya maxay u badanayaan nooc may noqonayaan waxay u badanayaan containers bundles wixii general cargo nooc kasta waa la dhigi karaa waa safe waa qayb kale oo ka mid ah hawlaha dekada magaalada berbera muddooyinkan dambe lagu xidhay qalabkan halkan ku xidhan waxaa loo yaqaanaa xafaaradda waana qalab ciidda ka soo saaraya dekada dhexdeeda isla markaasina looga faa'iideysan karo qaab kale kaasi oo ah in uu buuxiyo dhul ay biyo fadhiyeen oo imika dhul ahaan loo isticmaali karo qaybo badanna ay ka dhigtay imika dhul caadi ah oo la dul marayo baylood Cabdilaahi Maxamed oo ah khabiirka hawshaasi ka shaqeeya ayaynu bal weydiin doonaa inuu faahfaahin naga siiyo qaabka iyo sida ay u shaqeyso ka bilaabay halkaas aad aragtaan koonaha shishadeeda marka hore gidaarku intaas uu ku koobnaa wad arkaysaan ciidu xagga uma dhaafsiisnayn halkan aynu taagannahay badbahayd ilaa 2 mitir ayay ahayd marka imika ciid baa lagu soo buuxiyo wad arkaysaa ilaa 3 mitir bay ciidu kor u kacday oo waxay la simatay levelkii dhagxaantu taalay halkan ay marna badbahayd 2 wiil ka hor oo lagu dabaalanay
waxyaabaha kale ee dekedda ku soo kordhay waxaa ka mid ah hore waxaa jiri jirtay marka dadka ganacsatada ay alaab la soo degayaan in ay xafiisyo kala duwan ay mari jireen taasi oo waqti badan uu kaga bixi jiray balse qoladan maamulka cusub ee iminka gacanta ku haysa waxay sameeyeen nidaam ay xafiisyadii hal meel isugu keenayaan taasi oo ay sheegeen in dadka waqtigii badan ee ka lumi jiray ay arrintaas u fududeynayso amaba ay soo koobayso bal xafiiskaasi midaynta shaqooyinka kala duwan ayaanu mas'uuliyiinteeda aan la kulannay iyagoo arrintaasi aan wax ka weydiinay bal waxa ay u tarayso dadka arrintan halka meel ay isugu imanayaan in ay wax nooga sheegaan bismillaahi raxmaan raxiim adeega waaxda socodka badeecadda ee macaamiisha dekeddu alaabta ay kala baxaan ay soo maraan waxa ahayd qaybtan dhowr xafiisna oo kala fadhiyi jirtay beriga hore iminka waxaa la isugu soo ururiyey intanaynu fadhino shaqada gebigeediiba markaa waxay noqotay qofkii markuu subaxii soo galo isagoo DO-giisii sita inuu xafiiskan ka bilaabo shaqadii kuna dhammaystaba dabeedna uu rarkii u baxo iyadoo adeegii la isku soo ururiyo laga dhigay boodhka iga dambeeya ay ku wada qorayn iminka inta xafiis halkan fadhida oo ay ku dhammaystireen markaa ganacsatadii iyo macaamiishii dekedda la macaamili jirtay ayagoo aan dhibaato badan la kulmin iyo turaanturooyin badan ayay iminka alaabtu dhaqso ugu baxdaa raallina way ku yihiin mar walbana waa ka mabsuud waxay dhahaan waana ku mahadsantihi shaqada naloo soo ururiyo xafiiska ku dhan looga soo dhigay la isugu wada kana meel sidaa awgeed shaqadii maanta waxay maraysaa meel aad u fiican oo qurux badan بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa goobta caafimaadka ee dekedda Berbera waxaa lagu qabtaa goobtan caafimaadka waxyaalo badan baa lagu qabtaa adeegyada accident adeegyada emergency-ga ayaa lagu qabtaa dhaawaca degdega taasoo ay sababaan maraakiibta dushooda iyo korka hoostooda la joogaba ay dhaawacyadu dadka ka soo gaadhaan adeegan waxaa la furay intii dowladdan cusub ee dhalatay adeegan waxyaalo badan baa lagu qabtaa sida dadka oo lagu talo dadka oo lagu gudbiyo xagga isbitaalka guud loo gudbiyo iyo dadka oo halkan wixii emergency lagu sii sameeyo intaasna waxaa ku dhan barnaamijkan oo ka mida barnaamijyada taxanaha ah ee ku saabsan magaalada Berbera waxaanu barnaamijkan si gaar ah ugu eegaynay dekedda magaalada Berbera iyo kaalinta ay ka qaadato horumarinta Somaliland iyo adeegida bulshada waa Cabdisalaan Herari Universal TV Berbera